waaxda sirdoonka waddanka Mareykanka ee CIA ayaa rumaysan in dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu ka soo baxay amarka lagu dilay wariye Jamaal Khashoggi sida laga soo xigtay warbaahinta waddanka Mareykanka. ilaa wareedyo ka agdhow waaxdan ayaa faahfaahin ka bixisay qiimeynta lagu sameeyay cadaymaha la hayo. waxa ay sheegeen inaysan garanaynin cidda dambiga geysatay balse ay filayaan in howlgalka noocaasi ee lagu dilay wariye Jamaal uu ahaa mid uu isagu qalinka ku duugay waa dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. shir jaraa'id oo maalintii Khamiistii uu ku qabtay magaalada Riyaad ayuu ku sheegay ku-xigeenka dacwadoogaha waddanka Sacuudiga Shalaan bin Rajiih Shalaan in meydka Khashoggi lagu dhex jarjaray gudaha qunsuliyadda Sacuudiga markii uu dhintay. dhanka kale masaajida ku yaala wadamada Sacuudiga iyo Turkiga ayaa salaada janaasada looga tukaday wariyihii la dilay ee Jamaal Khashoggi. Saalax Jamaal Khashoggi oo ah wiilka uu dhalay wariyaha la dilay ayaa ka qayb galay munaasabada aabihii loogu ducaynayay oo lagu qabtay magaalada Jidda ee waddanka Sacuudiga. sidoo kale boqolaal dad ah ayaa ka soo qayb galay salaada janaa'isul qaa'ibka oo Khashoggi looga tukaday magaalooyinka Maka iyo Madiina iyo sidoo kale Istanbul. Jamaal Khashoggi oo 2 bishii Oktoobar lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga waxa aan weli wax war ah laga haynin halka meydkiisa uu ku dambeeyay. boqortooyada waddanka Sacuudigu waxa ay sheegtay in dilka Jamaal amarkiisu uu ka soo baxay xubno ka tirsan sirdoonka Sacuudiga balse dhaxal sugaha boqortooyada Amiir Maxamed bin Salmaan uusan wax shaqo ah ku lahayn. dowladda waddanka Turkigu waxa ay ku adkaysanaysaa amarka dilka Khashoggi inuu ka soo fulay madaxda ugu sarreysa boqortooyada waddanka Sacuudiga. waxaa maanta salaada janaasada Sacuudiga iyo Turkiga looga tukaday wariye Jamaal Khashoggi iyadoo aan meydkiisa wali la helin taasoo qoyska wariye Jamaal uga dhigan tahay in meydka Jamaal ilaa la helo inaan wax rajo ah la qabin. magaalada Jidda ee waddanka Sacuudiga waxa lagu qabtay munaasabad baroor diiqa oo lagu casumay inay ka soo qayb gasho cid kasta oo doonayso inay qoyska Khashoggi ay u tacsiyadayso. bishii hore Saalax Jamaal oo ah nin Sacuudiga u dhashay dhalashada Mareykankana haysta waxa uu magaalada Riyaad kula kulmay boqorka waddanka Sacuudiga Boqor Salmaan iyo sidoo kale dhaxal sugaha Amiir Maxamed bin Salmaan iyaga oo qoyska Khashoggi uga tacsiyadeeyay. markii xayiraadda safarka ee saarneyd Saalax laga qaaday waxa uu u safray magaalada Washington xilli uu ku sugnaa waddanka Mareykanka. waxa uu warbaahinta waddankaasi u sheegay inuu doonayo in meydka aabihii marka la helo inuu ku aaso magaalada barakaysan ee Madiina. Saalax oo ah wiilka uu dhalay wariyaha la dilay waxa uu intaa raaciyay waxa aan doonayaa inaan aabahay si sharaf iyo maamuus leh u aaso. Yani eğer böyle bir şey olacağını kaldı. gabadha uu wariyuhu guursan lahaa oo lagu magacaabo Hatay Sangis mar sii horeysay waxa ay warbaahinta u sheegtay in waayitaanka wariyahaasi la dilay ee Jamaal Khashoggi inay uur ku taallo ku abuurtay xitaa inaanaysa sii macasalaameyn markii ay kala tegayeen ee isugu dambeysay ilaa iyo haddana dhimashadiisa ay u qaadan la'dahay. waxayna intaa raacisay haddii uu qof dhinto dhimashadiisa waxaad kaga samraysaa meydkiisa oo aad aragto oo weliba aad aasto balse taasi ma ay dhicin ayay tidhi Hatay Sangis oo ahayd gabadhii uu guursan rabay wariye Jamaal Khashoggi. Siciid Axmed Timreyse wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.